الله الرحمن الرحيم ugu horeyn wasiirka wasaaradda dibadejinta Ali Saciid Reegal wasiir dowlaha wasaaradda beeraha saaxiibkay Cabdiwaxid wasiir dowlaha wasaaradda nabadeynta gobolada bari ex wasiirkii hore baashe dhiijiyada barasaabka maayarka hay'adda ARC American Refugee Committee magda Arab isduwaha wasaaradda hawlaha guud isduwaha iyaga isaguna halkan fadhiya wasaaradda qorsheynta iyo dhammaan odayaasha dhaqanka deegaanka Arcadeeye ee qadada wanaagsan ee maanta macaan ugu casuumay waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu wasiirka dhameeyay waxaan oran laynba waxaanu hayn oo u soconay laba waji horta inaanu indhaynayno runtii anigu gaadhaan ku mari jiray laakiin qoxoontiyada kuma leexan jirin laakiin farxad bay tahay iyo xogogaalnimo inaan ogaado waxa ka jira gobolka Sool iyo Saraar runtii qoxoonti badan baa ku soo barakacay waana meelihii abaartu ugu badnayd iyo inaanu raashinka idin soo gaarsiino markii hore barnaamij baan u soconay inaanu ka qayb galno shir lagu qabanayo magaalada Ceeg oo ah live on New waxa isku xidhmayay gobolka Togdheer degmo yaro ka tirsan ninkii Bill Gates la oran jiray wax bixin jiray ayaa doonayay taajirka haba doonayay inuu dad caawiyo marka programkaasi dib uu nooga dhacay kulay idinka laftiinana hadhow waa program socon doona waxa laga yaabaa inuu soo gaaro waana program runtii wax badan ka tari doona baahida barakacayaasha raashinka sida uu carabaabay waxaan u soconay inaan raashin degmooyinka sidii loo kala itaal daran laga soo bilaabo Guumays Arcadeeye dharkeyngeey ilaa Saaxdheer inaanu gaarsiino waa bilow waa istaba socdaa insha Allah biidnillah wixii kalena way iman doonaan dardaarankaygu midun buuyi xogaal waan u noqonay waxna idin soo gaarsiinay laakiin mushkiladii yaro jirtaan istul taagaya waxa jira qoxoontiyada dhowr meelood baan soo marnay cabashada ilaa Togdheer way soo taxnay qof barakaca rasmi ah oo xoolihii ka dhamaadeen ayaa jira laakiin waxa jira midaan xoolihiina ka dhamaan laakiin ku xigsaday buulkiisii ku jira taasi dad islaamaynu inaynu isqiyaameynana ma mana qurux badna mana wanaagsan ninka masaariftiisii helaya ilaahay aanu ka barin inuu gacmaha ma hoorsan jirin gacmaha dadkeena reer waqooyiga aad xagga very proud baynu ka ahayn dad qabla baynu ka ahayn dadaan jecelayn hadiya jeer gacmaha hoorsan baynu ahayn waxa fiican roobkuna inuu daaya ilaahayna inuu naxariisanaya keena baahan markaynu isku horeysiin waxa yara la idin taro ama hay'adaha tarto ama xukuumadda idin tarto ina kiina baahan horeysiisaan oo isu cadaalad sameeyaan waa idinku dardaaraya waayo burcaan oga oo la cabanayay oo qoxoonti meel degan leeyahay dad fara badan oo ahayn baa ku jira waanu soo marnay degmooyinka laftooda kadaali waxa arkaysaa buul yaroo dhisano bacasi ku xidhantay hoostiisana aad arkayso inaanay cid u hooyan laakiin lagu xisaabtamayo marka wax yimaadaan ama tuulada lagaga soo kacaya taasoo kale ma qurux badna hadaa doonaysaan inaynu wax istarno ka baahan horeysiya kadib way gaari doontaa ka kale baahan laftiisu ee wax ku filayn ee meelaha iska yeelan qoxoonti hayn laakiin ama hore u soo barakacay isna gacanta way gaari doontaa laakiin marka hore iska horeysi kan xoolo ka dhamaadeen cusub ee maatida wata ka furiya taa waa idinku dardaaraya waxaan kaloo idinku dardaaraya marka wax la idin taro yaanay naga noqon wax oo aynu dhaqan u yeelano inaynu wax ka sugno ama xukuumadda ma hayad waxaan isku dayaynaa ama xukuumadda siyaasadeeda guud ee xukuumaddeena waxa weeye in dadkeena dib loogu celiyo miigi intii hadii wax loo helo in la xooleeyo 20 sabeenood loo iibiyo ama 15 sabeenood loo heliyo oo dib ugu noqdo waa program soo socda waliba programka ragga loo dhiibi maayo odayaasha waxaanu maqlaynay degmooyinka qaar marka wax bixisaan baa labadiina wasiir ama wasiirada noo yimaada ama xukuumaddu wax bixiso ama hay'ad wax bixiso shubkii sonkorta haya inta aha uu jabaa daqiiqdii way jabtaa tuulada lagu iibiyaa baa leeyahay marka waa qof aan u baahnayn bay gacantiisa gashay baahidi ma hayna taa dhacdo waxaan idinka doonaynaa in programyada soo socda dumarka lacagta hadii la tarayo
iyagaa dumarkaa gacanta loo gelinaya odayaashoo idinkuna ha ka xumaanina waxaan is leenahay halkaasi wax ku seef garoobayaan kunka dollar ee laydin siiyo ama 500 laydin soo galay ama xukuumad ama hay'ad idinka soo gaara inaad toban sabeenood siisato inaad dib adiga laftaadu inaad hadhow noqoto deeq bixiye markay kuu korodhay 40 kuu gaadhay inaad arka saaxiibka ehelka xididka inaad ka sooriyeen karto wax uga qali karto guumays baan soo marnay maanta qof dumar ah hadashoon mikrofoonka u dhibnay waxaan ka xumay ilaahay baa xaaladeena ogaa aad bay way haraadanayd way cunto la'ayd sanu arkay wajigeeda waxay tiri maanta ma aha madaxdaydu noo timi inaanu sara jooga ku wareysano inaanu hilbaydin qaleeyd bitay waa dhaqanka dadkeena oo idin fadhiisino fadhi idin ku wareysano laakiin sara joog baan idin ku wareysanayna waa dareen jira oo dadkeenu leeyihiin waa dhaqan inuu leenahay haddii reer waqooyiga waxaan u baahanay inaynu ka baxano ku jirmayno buulasha casas marka wax la idin taro ama dabadha la idin ka soo diro ama meel kale ha idin ka soo gasho inaad ku xisaabtantaan inaad noloshan ka baxdaan inaad ama miyiga ugu noqoto ama biibata yar furato ama noloshaada ka fayn karto laga wanaagsan inaad wuxuun ka sugto cid kale inaad ka sugto ma wanaagsana baryada faraha badan leh waan idinku dardaarina laakiin intii awoodayada la idinka tagi maayo qorshaha guud ee qaranka ee xukuumadana 5 sanadood waxa ku jira inaynu la jaan qaadno cimilada isbedeshay cimiladii adduunyadu way isbedeshay noocyaan wuxuu dhaqan jirnay xoolaha inaynu wuxuu dhaqanno ma waxa weeyaan awal hore qaabkeen wuxuu dhaqan jirnay sahankii iyo inaynu xoolaha wareejino maalinba meesha hogashu ka daado inaynu ka bedelo weey waxa qorshaha inoogu jira inaynu biyo dhulka ka soo saarno inaynu reeraha ku jeedino inaanay xooluhu foof tagin looga beero calafkoodii beerta dhexdeeda in biyo la helo in beer lagu jeesto in uu ku filaado waxa ogtiin wadamada saxaraha leh ayaa inaga xoolo badan ee Sacuudi ha noqoto waa dhul indhuhu ka soo boodayaan dhulkeena ka qurux badan haddana xoolaha ku nool way cilmiyeeyeen way u fakireen ma qaabkii hore inaan dhaqanno way isbedeshay weatherkii lama helayo doogii faraha badnaa waxaanu heli jirnay roobabkii ma jirayaan idinkuna u fakira qaabka u nolol leedeen ee ula jaan qaadi leedeen cimilada isbedeshay adduunyada waa idinku dardaaraya ka qorshayn ahaan inaanu abaarta u dhabar adeegno barnaamij weyn baa noogu jira waxa naga caawin doona kulay xukuumadda wixii bajadan u hayno dawladda caalamkuna dad badan oo noo ballan qaaday baa jira waa dhawaan marka sanadka cusub wax fara badan baa isbedeli doona laakiin idinkuna ku ka faa'iideysan noqdo insha Allah biidnillah intaasaan idinku soo gabagabeynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.